وهذا محمد كي كدي سودو وين هذا اسكنا بان كلها امد الصوماليين ماشي اونلاين هدي لا غرو امد الهي oo dhan ba soo galayso waxay soo maxaa soo galay waxaad ka hadlayso macna badan ma sameynayso ina ismu caaradno macna ma sameynayse ama mucaarad ama muxaafide dantayadu way isku qasban tahay waa waxa ilaahay baa isku tolay kala daan isku tolanahay waa inaanu isla sanqaadno way taa inaad ku xisaabtanto way wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh ogbaad waa ku salaamay soo dhawaada حليمة سودو وين هذا معان سعيدو سودو على سودو هذا على سودو هذا سفي على سودو هذا وفرين باجر تفرين عصب أو ضد كلو جد بينا هيو أما الشرقرة أما هالشرقراننا haddii aadan ka helin waxa laga hadlayo waxba sheer gareene laakiin haday tahay fariin umada anfacada ama muxaafid ahaa ama mucaarad ahaa haday fariintu tahay fariin dadka wax u taraysa deeynad umada u sheer gareyso waa waxa qof kasta looga fadhiyo way marka waxaan idin sheegayaa hadda kulli konton qof meelaha ku jirta marka inaan kulli fariintii aan bilaabo way waxyaabaha aan ka hadlayno topic-ayagu waxa weeyo marka hore dawladii Soomaaliya mowqifka ay ka qaadatay bariga dhexe oo mar horeba aan macnaha idin soo galiyay fariinteeda taasi waa koow tan labaad waxa weeyo xaaladda waagi dhaweeyta ka dhacday oo macnaha xoogaho aad u maleynayso umada Soomaaliyeed sida dadka umada Soomaaliyeed oo dhan ma ahaan macnaha dadka mucaaradnimada u maleeyay in wax lagu dumiyo u maleeyay qaabkay u dhigeen hadana laga waayinay arintii galgala ka dhacday dagaalkii annaga iyo al-shabaabna dhaxmaray sidii looga jawaabayna taasna waxa weeye topic labaad bay noqonaysaa hadana laga waayinay waxa kale oo aan ka hadlayaa hubka dhigista iyo Muqdisho sida ay macnaha dadku u fahmeen iyo sida xaqiiqdu ay tahay taasna waanu ka hadlaynaa hadana laga waayinay qaraxyada dhacaya taas ayadaana waanu ka hadlaynaa ilaahay bay tiisa tahay wax kastana waxaan isku dayaynaa inaan sida xaqiiqda aan wajahna ayaan isku dayaynaa marka waxaan hadda ka bilaabayaa marka qodobka koobaad waxaan ka dhiganayaa qaraxyada Muqdisho ka dhacaya qaraxyada Muqdisho ka dhacaya xaqiiqda dhabta markaan abaarno dawladdu sidii uu ra'iisul wasaaruhu sheegay ama madaxweynuhu sheegayba dawladdu waa dhowr boqol oo qof iyo hadaan laga waayinay macnaha inkastoo macnaha tirakoobka bani aadam dadkan caalamku ay sheegeen dhowr iyo 10 milyan ay tahay laakiin anagu 20 milyan baan anigu qabaa inaanu nahay marka 20 milyan 500 oo qof iyo wax la mid ah macnaha hatta percentage 1% kama noqon karaan hatta waa 0% marka waxa loo baahan yahay dadka bani aadamku horumarka gaaray waxay horumarka ka gaareen qof kasta oo bani aadama asaga ayaa macnaha mas'uuliyadda wadankiisa isa saara baleegada waa qof kasta ayadoon cidina dirsan lacagna aan ku qaadan magacna aan ka rabin ayaa waxay macnaha wuxuu higsanayaa inuu noqdo magac ahaan dawladda Soomaaliyeed inay noqoto dawladda koobaad ee adduunyada macnaha ammaanta mudatay ayuu inaad higsato adiga ammaantaada qof shakhsiyadeed markii lagu arko dadku waxay kugu macnaha xurmeenayaan sida dawladnimadaadu ay u eg tahay ayay dadku kugu xurmeen karaan sidaa darteed dawladdaas marka qof gaar u leh ma jiro qof gaar u leh male qof gaar ay wax u dawladda macna u sameynaysa ma jirto si gaar ay u shaqeynaysa ma jirtee annagoo dhan
ayaa waxa sumcaddayadii baa dowladda ku xidhan ciddii dowlad la'aan inay iska noolaata rabta waa wax ayaga u yaalla run baan idin sheegayaa mucaarad iyo muxaafidba waan la hadlahayaa haddaan wax noqonno wax noqoshadayadu ma aha eg inaad wax noqoto ujeeddadu ma aha inaad mucaaradka ka soo horjeeddo ma aha mucaaradkuna inuu muxaafidka ka soo horjeedsado micno ma sameynayo marka waxaa loo baahan yahay in dowladda lala shaqeeyo oo nimanka bamka sameynaya oo wax qarxinaya xaafaday soo marayaan xaafaduhu way og yihiin waa dadyow meesha ku nool dadka dhimanaya waa dadkoodii inay arrintaa ayada ah ka waantoobaan oo dowladda lala shaqeeyo oo nabad sugidda lala shaqeeyo oo booliiska lala shaqeeyo maalin kasta waxyaabaha laga hadlaya waxaas weeye haddaan sidaa la yeelin micno badan ma samayn doono dad taariikh ummadda ku yeelana caalamka ku yeelanaya ma noqon doono marka qof kasta waa inuu awoodda saaro qof kasta waa inuu awoodda saaro war maxaan wax ku noqon karnaa inaa awoodda saarta way adoon cidna wax dan ah inay kugu siiso aanan u joogin macnaha taas waxaan farayaa marka dadka muqdisho jooga waxaan saa u leeyahay muqdisho waa magaalo madaxda soomaaliya waa muraayadii ummadda soomaaliyeed dadka meesha ku nool inay la shaqeeyaan dowladda waxay saameynaysaa waddanka oo dhan mid saameyn kule bay noqonaysaa maxaa yeelay waa muraayadii waddanka weeye bahasha in la qabiileeyo qabiil muddo badan baan qabiil ku soo jirnay qabiilkan not make sense wax micno badan noo sameynaya maaha run baan idin sheegayaa waxaad sameynaysaan marka haddaan ele laga waayinay hebel baa ii sheegay micno ma sameynays ilaahay inuu maskaxdaada geliyo oo hanuun inuu maskaxdaada geliyo oo ilaahay ku fahansiiyo dadkaaga iyo dalkaaga iyo diintaada midnimay u baahan tahay waxtasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu halkaas haddii aad sidaa u eegto meeshaa inaad dhex gasho ayuu diintu ku faraysaa haddaadan meeshaa dhex galin waxaad noqonaysaa nin diintiina lid ku ah dadnimadiisii iyo qowmiyadnimadiisiina lid ku ah baad noqonaysaa marka taa waxaan ku noqon karnaa horta adduunyada maxaa lagu midoobi karaa ma garanaysaa adduunyada waxaa jira bahal jirac duulaan la yidhaah jirac duulaanku mid baa horkaca midkaa horkacaya midkaa jirac duulaanka oo duulaankaas horkacaya haddii la dilo jirac duulaanka kale wuu kala firxanayaa firxashaa ku dhici jahawareer marka ummad kasta waxaa hormuud u ah dowladda caalamku maanta dowlad ku nool weeye waxaan dowlad ahayn oo iska soconahaya oo guruubaysi oo marba meel waxay doonaan isaga hadlaya micno badan ummadda uma sameynayaan run baan idiin sheegayaa waxa aan wax ku noqon karno waa hoggaanka dowladnimo marka dowladdaas inaanu barigantaallo oo nin kastaba meesha uu ka taagan yahay inuu baritaaro wey sominaan garan waxaa loo baahan yahay marka waxaan xurmo ku yeelan karnaa inaanu fahanno meesha aanu naallo qofku markay saamayso soomaalidu meesha ay taasho maanta markii way saameyn ku yeelato oo uu fahmo ayuu wuxuu ka dagaalami karaa inuu meeshaa kor ugu kaco intuu kor uga kaco inuu caalamka la tartami karo ayaa looga baahan yahay xaqiiqda dhabtaa taa wey inta aan inta laysfashilinayana micno badan ma sameynayso kan mucaaradkaana micno ma sameynahayo kan mucaafidkaana micno ma sameynayo inta macnaha laysfashilinayo in laysfashilinaya micno badan ma sameynayso laakiin markaanu isku jiha u soconno micnaanu sameynaynaa caalamkaanu la tartamaynaa waxaanu sameynaynaa macnaha muuqaal aanu iska dhex arki karno oo qof kasta oo soomaaliya uu iska dhex arki karo ayuu caalamka dhexdiisa ka arkayaa laakiin maanta qofkii qof soomaaliya arka wuxuu leeyahay war dadkan balaaya ku habsatee maxaa ku dhacay meel kasta oo aad marato marka waxaas waxaan uga giigilan karnaa oo aan kor uga kici karnaa inaan qof kasta oo soomaaliya uu mas-uuliyad isa saaro oo aanan dowladda keliya loo fiirinin inay ayadu macnaha shaqadaa qabato dowladda lagu sheegaya shacabka weeyo dowladda tani waa shaqaalaha iyagaa waxaan kula shaqayn karnaa inaanu annagu baritaarno saxaafadda aan ku baritaarno oo haddaan ala laga waayinay
aanu ku bari taaro muuqaalka saxda ah kuwa goobta jooga ay dawladda dhexe ku shaqeynayso kuwa jooga inay haddana laga waynay si toos oo action wax u tusaan oo ay cadowga kala shaqeeyaan ayaga looga fadhiyaa qof kasta meeshu joogana waxa looga fadhiyaa intii karaankiisa ah wuxuu ka qayb qaadan karo taasi halkaasaan ku dhameenayaa waxaan dib ugu noqonayaa hubka dhigista taasaan dib ugu noqonayaa marka hubka dhigista lagu sheegayo run baan idin sheegayaa hubka dhigista wax la yiraahdo Soomaaliya kama jiraan waxa ka jira waxa weeyo in nabadgelyada la sugo hubka la dhigayo dadka baac mushtarka ah siyaasiyiinta dadka ummadda Soomaaliyeed in ay higsato meeshii la rabay inay higsato rabta ma aha waxa laga dhigaya qofka Soomaalinimada farataysanaya qofka midnimadeena hoos u dhigahaya jiriga isbaarada dhiganahaya kan al-shabaabka macnaha hadan laga waayinay diilka la leh oo qorigana haysta ileen al-shabaabkani waxay dad bay la dhiil gareeyaan oo information bay haystaan ayaga naftooda kuwa noocaasa hubka ayaga in meesha laga qaado la sifeeyo way hubka la iskala soconayo suuqa dhaxdeeda in la sifeeyo way meesha safaarada imaanaya haddaan laga waayinay shirkadaha imaanaya waa meesha wadanka laga hogaaminayay inaad hub iska dhax wadato ama haddaan laga waayinay dadka argagax adgelisa dad ilaa meesha waa goobtii ajnabigu ay Soomaaliya ka soo galayeen way haddaad argagax ku samayso oo dadkan caalamkan qoryo suuqa lagu wato lama yaqaano marka sidaa darteed dadka Muqdisho jooga hubka haddii aynan leeyihiin macnaha hubka ma dhigayno oo isma aaminayno hadday waxa ka wadaan ha aadaan maamul goboleedyadooda ha ka diiwaan gashtaan meeshaas maamul goboleedyaduna ama ha ciidameeyaan ama ha diiwaan geliyaan oo sharci hub sharciyeysan oo dad caqliga iyo cilmiga u saaxiiba gacantiisa inuu hubka gala weeyo oo ku noqo macnaha aad gobolada maamul goboleedya jira been isma sheegeen 4.5 ba wax lagu qaybsaday 5 ba ka dhigay 5 ka wax lagu qaybsaday nimanka bulshada 5 ka ah oo dadka macnaha adariska la leeyahay gobol kastay degan eegada gobol kastoo degan systemka gobolkaas maamul goboleedka systemkiisa bay la san qaadanayaan oo ku dhaxnool yihiin hadday ciidamo yihiin hadday baac mushtar yihiin hadday siyaasiyiin yihiin hadday yihiin bulsho rayid oo iska caadi oo ummadda ku dhaxnool waxay kala qayb qaadanayaan maamul goboleedyadooda meesha ay joogaan bay ku sharciyeysan yihiin oo hubkoodana lagu sharciyeenayaa hadday hantidooda ku waardiyeynayaan hubkaas iyo hadday naftooda ku waardiyeynayaan oo ay siyaasiyiin yihiinba maamul goboleedyo yileen imma magaala madaxda anagu waxa idin sheegayaa magaala madaxdu waa magaala madaxdii Soomaaliyeed qof hub ku dhax wadan kara ma jiro qof magaala madax baan anagu macnaha ka arrimin kara kaligay leena ma jira maamulka magaala madaxda dawladda federaalka ayaa ku shaqo xukunta doorashadeeda iyo haddaan laga waayinay maamulkeeda iyo wixii meesha ka arriminaya waa wax federaal ku saabsan way aad iyo aad baan ugu mahadinayaa qaabka haddaan laga waayinay maamulka Muqdisho hadda loo soo agaasimay waa si aad iyo aad u wanaagsan oo ummadii Soomaaliyeed oo dhan ay iska dhaxarkayaan dad aqli u saaxiib ah qorsheeyay dad wadaniyiin ah qorsheeyay qabiil kasta oo Soomaaliya maanta Muqdisho gudoomiyu ka yahay waa wax xaqiiqo la og yahay taas ayada waa wax la higsanayo macnaheedu ma aha meel reer degan yahay baad ayaa reerkii lagu dul xukumay haddaan iska dhaadhicinayso tinka baarid anigu joohar kuguma xukumahayo beledweyne kuguma xukumahayo haddaan laga waynay baadhaba kuguma xukumahayo waxaan waa dawlad federaal wey dawladda federaalka waan wada leenahay haddaan wada leenahay waa inaan wada agaasino Muqdisho maamulkeeda inaan wada cabirno wey oo aanu nabadgelyadeeda cabirno wey caalamkii oo dhan waa meeshii ay naga arkayeen wey haddii caalamkii oo dhan meesha naga fiirinayaan ay halka tahay caqliga saliimka ah wuxuu nafarayaa in dawladda federaalka ay maamusho Muqdisho hadda ka hor anigu clip aan hal ka hor soo diray
markii dadku siday u hadlayaan aan arkay dadka qaarkood siday u hadlayaan markaan maqlay baa waxaan is idhi bal waayahay muqdishada nafteeda hala kala qaybiyo qayb dawladdii ay ku shaqaynayso iyo qayb macnaha gobolka banaadir ah oo haddaan laga waayinay ama ha lagu daro haddaan laga waayinay hirshabeelle ha lagu daro ama se ha lagu daro koonfur galbeed macnaha inta la kala qaybiyo qayb dadka banaadir gobolka banaadir la yidhaahdo iyo qayb dawladdu ay ku shaqayso oo magaalo madaxda muqdisho la yidhaah oo macnaha saaha loo kala mar baan sidaa idhi haddaan sidaa u eegayna waxaasna xataa wax duxlahoo shaqaynaya ma aha jaro online baan ku jira ayaan laysa soo wicin markii online-ka lagu jiro please marka waxaan idiin sheegayaa oo xaqiiqdu ay tahay marka muqdisho waa muraayadii ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay in hubka la dhigo muqdishona reer keliya ma laha haddaad isleedihiin reer baa hubka laga dhigayaa reerka muqdisho iskaloo hubka dhigaya waa max muqdisho ma baadiyaan ka hadle anugu kama hadlin haddaan lagu odhe ceel rifiid iyo anugu kama hadlin haddaan alle laga waayna iyo meesha la yidhaha koonaha kama hadlin anugu afgooya kama hadlin haddaan alle laga waayinay kama hadlin balcad kama hadlin waxara caddi iyo xagga xataa kama hadlin xataa waxara caddi xataa hal in laga jaro weeyo xagga iyo joohra la raaciyo haddii la doono waxaan ka hadlaya waa muqdisho run baan ka wada hadleenahay indhaha muqdisho waa inay noqoto meel dawladda federaalku ay ka arrimiso oo dadku aynan hub haysan oo dadku horumar u taagan yihiin oo bani aadamka noo imaanaya aanu la dhiilgareenno oo si haddaan alle laga waayinay bani aadamku siday u wada ilaan qori adoo wata dadka si aad kusoo dhawaysa way adag tahay marka dawladda federaalka in loo dhaafo maamulka muqdisho waa muhiim taas halkaasaan ku dhammeynay oo hubka muqdisho in hubka laga dhiga weeyo hubkaa la dhigaya haddaadan ogoleen bliis waxaan kaa codsanayaa maamul goboleedkaaga aag haddaad reer puntland tahay puntland aad haddaad hirshabeelle tahay hirshabeelle aad haddii aad tahay haddaan laga waayinay haddaad tahay koonfur galbeed aad haddaad jubbaland tahay aad soomaaliga haddaad somaliland tahay aad soomaalian garan hubka muqdisho laguma haysan karo dad qabiil ah muqdisho ma degana run baan idiin sheegaya dadka caanaha keena oo muqdisho caanaha ka keena waxaa la yidhaha xamar dee iyo xamar baa la yidhaha taa waa laisla ogyahay dadka xagga caanaha keena qaarna waxay aadayaan oo ay ka qayb yihiin oo da ogtihiin koonfur galbeed qaybna waxay ka mid yihiin hirshabeelle waa qasab taas waan wada ognaa been ma sheegayno xamardeya qaarna waa hirshabeelle qaarna waa koonfur galbeed meeshan inaa carqalad laysu sheega ma ah kuwaasi marka markay magaalada imaanayaan hub lama imaanayaan hubkooda waa inay balcad soo dhigtaan oo ay muqdisho ayagoo caana wado oo caws wada ama se waxay kale ay wada ama xoolo wada inay imaadaan weeyo bani aadamku siduu u dhaqmaanu idiin sheegaynaa waa qaabka dawliga ah wey qaabka dawliga ah wey oo macnaha dadku u shaqeeyaan wey marka muqdisho hub laguma wadan karo muqdishona looma nisbeen karo reer baa hubka laga dhigayaa qofkii yidhi ow reerku maamul goboleed buu leeyahay reer aan maamul goboleed lahayn ma jire maamul goboleedkaaga aad biliis oo hubkaaga halkaa ka sharciye balcad markaad soo maraysa hubkaaga iska soo dhigo imow muqdisho ku dood haddaan siyaasad haddaan ka hadlo ama baaxmushtar ka noqo that's your business haddaad baaxmushtar tahay hubkaaga waad haysan kartaa waa la diiwaangelinayaa haddaad siyaasi too al-shabaab ka baqayso hubkaaga waad haysanaysaa waxaa lagu iclaaminayaa hubkaaga inta aad haysan karto waa lagu iclaaminayaa 4 AK baad haysan kartaa already waa la sheegay dawladdu way sheegtay waxaa lagaa rabaa 4 AK-47 ah ayaa lagugu waardiin karaa waxaa waxii ka badan ileen dawlad kuma soo weerarayse oo dawladdu waa safe waad ogtiin been horta waxaan la hadlayaa hawiye nimanka hawiye oo siyaasiyiinta inaan ereygaa idhaahdo nimanka hawiye phobia ka qabaan hawiye ina markaan idhaa phobia ka qabaan laakiin dantiibaa qasbaysa inaan magacaabo ilaa cid kale oo dhib haysta ma jirta run baa idin sheegayahay waxaana in la isku nacana ma ah waa run weeyo
waxaana aad iska dhaadhicinaysaanoo hubkii baa la iska dhigayaa oo reer hawiya hubka laga dhigayaa oo daarood baa macnaha haddaan alla laga waayinay na qabsanahaya aad leediin war daarood meeqa mayl buu idin jiraa ma daarood baa muqdisho ma intuu gaalkacyo ka soo weerar tago buu muqdisho idinku imaan karaa miya ma intuu kismaayo ka soo weerar tago muqdisho idinku imaan karaa war yaa caqligu inuu shaqeeyo wey caqligu ha shaqeeyo caqligu inuu shaqeeyo wey bani aadam haddaad tihiin daarood meel uu ka soo weerar tago idinku imaada ma laha dowladda federaalka ana waa dowlad federaala oo haddaan alla laga waayna ummadda u dhaxaysa way naga wada dhaxaysaa muqdishoay ka shaqaynaysaa hubka dhiga hubka haddaadnaan dhigaynin goboladiinna iyo meesha maamul goboleedkiina uu jiro taga oo ka diiwaangasha oo halkiinaas ahaada markaad muqdisho imaanayso adigoo bani aadam ah oo bulsho rayad ah oo dowladda isu dhiibay oo u gacan dhiibtay ilaan cid ku weeraraysa iyo cidda kugu haysa male dowladdani nasiib waxaanu ku yeelanahay labada nin ra-iisul wasaare iyo madaxweynuhuba waa niman hambal ah qalbigooda markay hadlayaan baad ka dhex akrinaysaa niman hambal ah oo aad iyo aad waxaan ka baqayaaba inuu ilaahay nagu cadaababa nimankaas ilaahay inuu dhibaato kaleba nagu rido ayaga dartood baan ka baqayaa nimankaas markii aad aragta qalbigooda iyo siday u hadlayaan waxaad leedahay ilaahay baan kugu dhaartay waxaad leedahay waxaanu ku dhex badbaadaanu gallay baad ayaad ka fekeraysaa inaan ilaahayna badbaadiyey ayaad damiirkaaga gelinaysaa oo run ah marka waxaan idiin sheegayaa hubkana sidaa wey taa labadaa waan ka hadlay labadaa arrimood waan dhameeyey waxaan ka hadlayaa oo kale puntland iyo weerarkii al-shabaab dad badan oo soomaali ah ka warran qof soomaali ah haddii dad soomaali ah oo al-shabaab ood garanaysa oo cadowgii ummadda soomaaliyeed ah oo cadowgii bani aadamka ah dad haddaan alla laga waayinaya ama iska saxuuranaya ama iska afurahaya haddii inta lasoo ataaga ilan qorshe ma ku jirin dagaal iyo waxaas maan inkastoo askartu inay soon iyo soon la-aanba askarigu inuu iska ligan yahay oo taa u taagan yahay muhiim weeye waa qasab weeye taas waa qasab ama soon la-aan aabbaha iyo hooyada sirta militariga looma dhiibo run baan idiin sheegayaa sirta meelaan u soconahayo xaaskayga ma ogaan karto markaan military ahay meeshaan u soconayo waxaan samaynahayo never ever nobody oo la aamini karo oo sirta militariga loo dhiiba ma jirto marka qofka militariga ma seexan karo soon iyo soon la-aan ma seexan karo waa xaqiiq weeye inkastoo taasi ay tahay wax abaxsan oo qalad oo anigu arrinta ayadaa aanan aad iyo aad macnaha eed aan saaraya macnaha systemka meesha ka jira qaladkii uu galay waa waxay ayagu ay mas-uul ka yihiin wey laakiinse cadow inaan leenahay baanu ogeenba in cadow al-shabaab la yidhaah oo soon iyo soon la-aanba ku soo weeraraya inuu jiro baanu isla ogeen oo run oo dadkao dhan ogyahay wey marka arrinta ayadaa in laga diyaargaroobo weeyo laakiin dadka soomaaliga ah oo macnaha ka dhigaya eeg u durbaantubaya oo weliba fantasi u samaynaya oo baadhi u sameeyey ummad soomaaliyeed oo al-shabaab ay haddaan alla laga waayinay ay soo weerartay oo haddaan laga waayinay weliba aan maaragtay si qaldan laysu maaragtay laakiin annagu waad og tihiin run baan idiin sheegaynaa arrintaa ayadaa arrin ummadda soomaaliyeed qof damiir soomaaliyeed oo ku jiro dad soomaaliyeed oo bilaa sabab la-aan ciidan soomaaliyeed oo meel iska jooga bilaa sabab la-aan aan cid weeraraynin oo deegaan waxay ku fiican yihiin ciidamada puntland oo run baan idiin sheegayaa oo qabalin ahaanna uma hadlayo oo run ah ciidamada puntland ayagu wax ma raadsadaan haddaan la soo raadsan never ma soo raadsanayaan run baan idiin sheegaya cidna ma weeraraan haddaan la soo weerarin laakiin haddii la soo weeraro qaniyadaasi dharbaaxa jaan baa lagu bedelayaa dharbaaxa jaan believe me waana run wey waadna wada ogtihiin dadka laysma xaqiro puntland ciidamadeedu waa ciidamo tababaran oo jawaab ka bixinaya wixii soo abbaara jawaab ka bixin kara wey oo si degdega weliba jawaab ooga bixin karaa